هلين برايم مينستر عد شعبك انت هالسوق ده هدنا لا حساب تمين maalintaas inta laga gaaraya hasuuqa saar u soconaya waa laazim beesha caalamka inay Soomaaliya ku tiragasho dad baa jira heeg jiraan maxkamada heeg Afrika ay kamid yihiin maalin walbana dad baa meesha lagu maxkameeyo maxay ku dhacday Soomaaliya in hal noolin qof ummadda intuu hasuuqa hadana shacabka iska dhax soconaya si caadi ah dawladda federaalka in arintaas hogaamiso ay codsato. There is no way we can allow impunity to continue, Mr. Prime Minister. This is impunity day in, day out. maanta waa gaalkacyo berri waa kismaayo maalin kale waa beledweyn shacabka meeqaasanoo la laaynaya yaana mas-uuliyadda qofka la laaya qaadan doona inay qofkaa la ciqaabo ma socon karta arrintaas waana ka wada hadalnay annagana runtii hadda urur goboleedka igaad aniga waxaan rabaa anoo ergeyga inaan runtii arrintaas ku dhiirigeliyo maxaa maalintii qof Soomaali maxkamad caalami la keena hasuuqan uu joogsan aan hubna laakiin maalintii caadi iska noqotay in shacab la barakiciyo magaalo buumen bay ahayd magaalo dhismaysay ahayd dad baa maanta ku nool xaafadooda ka qaxay duur ku nool waxay ku sugan yihiin in garneen kuwa dhintay baaba la gartay Allah u naxariisto hadda kuwa dhibaataysan u maqan markaas qolka soo gashaan wajiin markii la fiiriyo muruga ka muuqata waad wada hanaaqsantihiin yaad u hanaaqsantihiin yaad ka hanaaqsantihiin annaga waxaan u baahanahay Soomaaliyeed your excellencies you must be serious haddii leaders ina noqon karin shacabka loo baneeyo dad madaxdan hogaamin kara ilaahay ha u sahlo haddii kale ahaan leaders noqda shacabka isku dirina janno laguma galay wallaahi billahi tallahi naar baad ku mudanaysa annaga intaas ay tahay midda saddexaad prime minister ugu dambayso oo lidhahay sheek waa ciidan qaran in la helo Soomaaliya ma dhici karto inay states dhismaan stateska dhismaayana state walba uu ciidan u yeesho wadama ma toban wadan ba Soomaaliya soo hal wadan ulmaaha oo ciidan qaran oo astaanta qaranka inuu yeesho kali la rabo sidee ku dhici kartaa inay wixii aan ku aragnay videoska loo soo duubay arrinta ka dhacday gaalkacyo waxaad moodaa inay Syria ka dhacayso tanks iyo anti aircraft missiles say shacabka looga beeganaya soo waajibaadkii dawladda qaran ma taas ma waajibaadkii dawladda qaran aaway ciidan Soomaali hadda waxaad ka hadlaysaan 2016 maxaad ku gaaraysaan 2016 shacab ma haysin shacab hoobiye la dhacaysaan ma 2016 ku gaaraysaan waxay ila tahay inaa fikraddaas la bedelo walaalihiin dawlad goboleedka igaad iyo beesha caalamka dhiigooda ku qumay Soomaaliya they are dying in this country hal maalin cid isweydiisa male dadka ajnabiga oo dhiigooda ku qumay Soomaaliya why haddii aan haysan hubka aan haysan ciidanka aan haysan waxa ummadda u soo gurmata ma idinka samaysaan maxaad ugu baahanayeen in shisheeye idinku imaado waxa ugu baahan shisheeye inuu wadankan imaado haddii ciidanka la heli karo prime minister why do you require foreign forces if you have sufficient forces in the country well equipped why maskaxda ma shaqaynayso waxaad ku maqadin kulli waa dhunsantihiin ilaahay ka cabsada wadankii umadiin u naxariista taasa aniga liire far midda ugu dambaysa waxaan rabnaa wada hadalka socda hadda Soomaaliya guud ahaan 2016 arrinta ka dhacday gaalkacyo idinka moodin inay gaalkacyo kali ku egtahay Soomaaliya idil guuxeedu ka yeer meel walba oo Soomaaliya beesha caalamkana waxay noqotay arrin lala yaabo oo it jolted the international community waxa idinka waxaad moodaysiin dad deegaankan gaalkacyo kali isku dagaal inay tahay dhibaato weyn had u keenteen shacabkiina waxaa muuqata dhibaato weyn inaad Soomaalidu u keenaysaan waxaa muuqata dhibaato weyn inaad haddana beesha caalamka u keenaysaan ha u malaynina inay tahay wax deegaankan kali ku eg kuma eka deegaankan ha u malaynina wax gaalkacyo kali inay tahay walaalayaal reer dadka ku nool gaalkacyo magaaladan gaalkacyo ha isku abtirinina walaalayaal waxay yeeshaan walaaltinimadiina ka shaqeeya aanan isku kindirin nabadda nin walbo gaalkacyo ku nool ayay dan u tahay markii laga soo gudbo guud ahaan qaranka haddayba dan kuu tahay amaad ka shaqaysid adigu wax dan kuu ah ma in la saxiix u baahan tahay ma inaad soo gurmana u baahan tahay generaalka militariga waa ka Soomaaliya u weyn ciidanka kulli prime minister waxaa dhihi lahaa aniga
odayga ha lagu wareejiyo giddigood say wada dhan yihiin wixii Soomaaliya asaga ha lagu wareejiyo asagana mas-uuliyaddiisa ha qaata inay tahay ciidan qaran inay noqdaan haddii saa inay yeelin cabdikariinna ma aha cabdiwelina ma aha hataa prime minister ma aha hataa kii ka dambeeyo iyaga imaado asana ilaa wuxuu ku imaado unbuu lugta la gelaya haddii waxba laga bedelin ani waxaan u baahanahay waxaan walaalayaal Soomaalida halkan iskugu imaatay midnimadiin ayaa muhiim ah arrinta ka dhacda gaalkacyo waa ceeb ma wax lagu farxa waxa iskugu imaanay wax maalin farxadeed maxaa farxadeed 50 qof aastan maxaa ku aastan oo sabab it's a shame markaas national titles ay wada wadataan it's not proper aniga waxay ila tahay arrintaas ha laga fiirsado waana implementationka prime minister implementationka arrintan la saxiixay waa maanta in la bilaabo maanta ciidamada la kala qaada shacabka isdhex maraan gaalkacyo ay gaalkacyo noqoto salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad mahadsan waxaan ku baaqaynaa laga bilaabo saacadan laga bilaabo markii heshiiska la saxiixay in wax xabad ah aysan magaalada gaalkacyo ka dhicin in ciidamada kala duwan ee gaalkacyo jooga mid walba meesha uu joogo qorigiisa uu ka bixiyo xabadda uu ka bixiyo mid walba meesha uu joogo qorigiisa uu raaraciyo aniga dhankayga waxaan farayaa dhammaan ciidamada galmudug meel kastay joogaan gaar ahaan kuwa magaalada gaalkacyo joogaahi in xabad joojin aniga oo ah madaxweynahoodii aan saxiixay inay xabad joojintaas qaataan wax xabadan inaysan ridin ayaan farayaa waxaan sidoo kale rabaa inaan ku baaq nabadeed in saan u saxiixno afartaas qodob siday tahay loo fuliyo annaga ka Puntland ahaana diyaar aan u nahay nabadaasi inaan qaadanay inaan rabno inaan hirgelinno boqolkiiba boqol uga horeysa xabad joojinta dadkaas walaalaha dhibtu dhex martay colaaddu waa mushkilad waa waanbaa u miciina nabad baa ka macaan nin dhintay baysan waxba uga oolin waa jaamac Dabaraani oo ka soo hadlaya magaalada Gaalkacyo Somali Channel TV